sababaha keena findoobka, daawadiisa iyo talooyin muhiim u ah qofka uu ka soo baxo. Finanka yaryar ee wejiga ka soo baxa oo caan ku ah magaca findoob ayay dhaqaatiirtu sheegeen in sababtooda ugu weyn ay tahay heerka dufanka maqaarka. Marka uu dufanka maqaarka ku jiro, xoqo hormoonka adrenaline ee isna maqaarka ku jira ayaa waxaa badanaya dheecaanada ay soo deynayaan qanjirada dufanka. Isku badashadaasi dufankana waxa uu aakhirkii keenayaa in bakteeriyada markii horeba ku nooleed maqaarka ay dufankaasi dheeraadka ah ee maqaarka ka imaanayay ka hesho meel ku habboon in ay ku korto. waxa ayna sababaysaa caabuq yar oo aakhirkii keena findoobka. Daawada vitamin A waxa uu ka mid yahay fitamiinada loo adeegsado daaweynta findoobka, gaar ahaan marka uu aad ugu faafo jirka. Inkastoo vitamin A-ga si aad ah wax ugu taro daaweynta findoobka, laakiin haddana waxaa jira xaalado caafimaad oo aan loo ogoleen isticmaalkiisa. Waxaana ka mid ah dumarka uurka leh oo la aaminsan yahay haddii ay vitamin A-ga isticmaalaan in ilmaha uurka ku jiro ay u keenayso khalkhal dhinaca abuurka ah. Talooyin muhiim u ah: iska jir inaad burburiso ama tuujiso finka iyo in aad xoqdo, waayo waxaad ku sii badinaysaa caabuqa. Gacmahaaga ka fogee wejiga. Waxaad ogaataa markasta oo aad taabato maqaarka findoobku ku yaalo in gacantaadu sii kordhinayso cuncunsiinta iyo dardargelinta bakteeriyada oo mid cusubna sii dhalinayso. Maalin kasta wejiga ku meero biyo diiran iyo saabuun si daldalooladu maqaarku ay u noqdaan kuwo furan. Iska yaree cunista cuntooyinka dufanka leh. Badso cunista khudradda kala duwan ee ceeriinka lagu cuno iyo kuwa dabka galaba labadaba. Cilmi baaris cusub ayaa lagu sheegay in cabista caanuhu ay kor u qaadayso soo bixista findoobka. Waxaa kaloo ay cilmi baariyaasha ay sheegeen in shukulaatada madoobi aanan kordhinin findoobka sida ay dadka qaar aaminsan yihiin. Waxaa muhiim ah in gabadhu ay iska hubiso in kareemyada iyo walxaha wejiga lagu meersado ama lagu qurxiyo in ay ka kooban yihiin waxyaabo dufan ah. Iska jir in aad hal mar wada isticmaasho kareemo kala duwan oo kuwa jidhka qalalaya oo loogu talagalay, waayo taasi waxay qaleel aan loo baahnayn iyo dulduleele u furaysaa jirka qaybihiisa kala duwan. Hababka ugu habboon ee finanka loogu hortagi karo: finanka waxay dhaawici karaan kalsoonideena oo ma ahan mid khusaysa bilicsanaanteena oo keliya. Waxay calaamad u noqon kartaa xaalado caafimaad. Haddaba maxaa sababa? Isku dheelitirnaanta hormoonada. Hormoonada oo aan isku dheelitirnayn ayaa waxay sababi karaan finan ka soo baxa wejiga. Waxaan ku hareeraysannahay kiimikooyin sun ah iyo wasakh badan oo khalkhal ku keeni kara hormoonadeena. Ka fogow dufanta, sokorta badan, waxyaabaha lagu daray ama waxyaabaha ay ka samaysan yihiin caanaha, qaxwada. Isticmaal dufanta wanaagsan sida afakaadhada iyo lowska. Awood u yeelista aashitada ku jirta caloosha. Waa muhiim aashitada ku jirta caloosheena inaan mar walbaba awood aan u yeelno si ay u dheefshiido waxyaabaha dufanta leh. Aashitada caloosha oo yar waxaa lala xiriiriyaa finanka. Haddii ay aashitadu yar tahay, si fiican uma burburin karto cunnada, sida darteed jirkaagu ma heli karo nafaqada uu u baahan yahay. Cab biyo lagu daray liin dhanaan ah oo ka buuxda, ama biyo ay ka kooban tahay waxyaabaha la qasay sida tufaaxa. 3. Horumari bakteeriyada fiican ee ku jirta dheefshiidka. Isku dheelitirnaanta bakteeriyada fiican haddii ay meesha ka baxdo waxay horseedi kartaa caabuq raaga iyo finan. Haddii aad tahay dadka isticmaala kaniiniyaha qalajiyaha, ogow wuxuu dilaa bakteeriyada fiican iyo tan xunba. Mar walba waxaa fiican in daawada aad isticmaalayso uu kuu soo qoro dhakhtar si dhibaato weyn aysan kuu gaarsiinin, sababtoo ah
daawada qalajyaha badan aad isticmaalayso waxay mararka qaar dilaan bakteeriya jirkaada u fiicneed, taasina waxay kuu keenaysaa dhibaato halis leh oo caafimaad darro ah ku horseedi karta. 4 shiid khudaarta iyo fruutka. Fitamiinada iyo macdanaha ku jira khudaarta cagaaran iyo miraha sida tufaaxa iyo mooska waa kuwa caawin kara in maqaarkaaga sii wanaagsanaado. sida ugu dhaqsiyaha badan ee loogu soo saari karo fitamiinada iyo macdanta waa inaad shiidaa. Isticmaalka dacarta. Dacartu waxay leedahay daawo wanaagsan. Waxay ka hortagtaa caabuqa iyo saameynta bakteeriyada, sidoo kale waxay horumarinaysaa dib u soo kabashada maqaarka. Dacarta kala jeex oo mari wejiga walaxda jiitamaysa ee ka imaanaysa meesha aad kala jeexday, ama soo iibso jeel ka samaysan ama bamaato ka samaysan dacar 100% oo mari meesha maqaarka ee finanka kaaga yaalaan. 6 biyaha lagu daray liin dhanaanta. Biyaha lagu daray liin dhanaanta waxay u fiican yihiin baabi'inta sumadda finanka. Sidoo kale waxaa ku jira fitamiin C badan kaasoo ka dhigaya maqaarkaada mid siman oo iftiimaya. Sidoo kale waxaa aad u fiican inaad sameyso biyo lagu daray liin dhanaan inaad maqaarkaaga mariso kadib marka aad seexanayso 20 daqiiqo kadib adigoo isticmaalaya biyo diiran. fadlan haddii muuqaalkan uu ku soo gaaray waxaan kaa codsanaynaa mar kale inaad asxaabtaada la wadaagto. haddii aad noogu cusub tahay aan ku soo dhaweyno subscribe noo saarto, like-tana waa muhiim. aad baad u mahadsantahay.